dal heer oo faqri ka gaaray aysan xitaa Soomaali ka gaarin dal dagaaladii ugu badnaa ee taariikhda dhaca ee ka dhaceen dal qarnigii aan ka soo gudubno qora ku waayay dagaal 100 milyan dad ku dhow dal ay Soomaaliga ka horeyso xubinnimada qaramada midoobay ee ka qayb ahayd ololihii uu xubin kaga mid noqonay ururkaas maantana ah quwadda dunida dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanba hogaamiya ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta magacaygu waa Cabbaas Mustafa ina like start videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo Shiinuhu waxa uu dhacaa bariga qaaradda Aasiya oo dalka saddexaad ee ugu baaxadda weyn dunida kaliya Canada iyo Russia ee ka baaxad weyn waa dalka ugu xuduudaha badan ee la wadaaga dalal kale asigoo la siman Russia waxa uu ka kooban yahay 22 gobol 4 maamul magaalo oo si toos dawladda u xukunto 4 ismaamul goboleed oo qoomiyadda laga tiri badan yahay ay leeyihiin iyo 2 maamul goboleed oo isku maamula awood dheeraadna leh ee hoostaga dawladda dhexe Hong Kong iyo Macau tirada dadka ku nool Shiinaha maanta waa 1.4 bilyan waa dalka ugu badan dadka caalamka shantii qof ee dunidan ku nool midkood waa Chinese muddo laga joogo maanta 70 sano ayuu Shiinaha kala wareegay Hindiya booska koowaad ee tirada dadka ku dhawaad 90% bulshada waddanka waxay ka soo jeedaan qoomiyadda Han ama loo yaqaan Chinese waa qoomiyadda ugu ballaaran dunida Ma Zedong oo ah hogaamiyihii Shuuciga ahaa ayaa asaasay xisbiga Shuuciga ee Shiinaha waxa uu dagaal la galay jamhuuriyadda Shiinaha ee dalka maamuleysay asigoo ka adkaaday waxayna ay u qaxeen jasiiradda Taiwan Ma uu ku dhawaaqay jamhuuriyadda ee dalka Shiinaha sanadkii 1949 asigoo hogaamiye u noqday xilliga Shiinaha dhibaatadii ugu darneed baa ka jirtay faqri colaad abaar nidaam dawladeed oo aan dalka ka wada jirin iyo aqoon la'aan ilaa laga gaaray 1978 oo Shiinuhu qaatay nidaam dhaqaale oo wax badan ka bedelay nolosha dalka Shiinaha waqtigaas 88% bulshada Shiinuhu waxay ahaayeen faqri waa dad kor u dhaafaya 800 bilyan xilliga ma jirin dal xiriir diblomaasiyad la lahaa Shiinaha ma jirin dal ganacsi la wadaagay oo wuxuu ahaa go'aan ayna cidna aqoonsaneen sanadaas ayuu Shiinaha nidaamkiisa dhaqaale bedelay taasi waxay dhaxal siisay in dadka waddanka wax soo saar sameeyaan sanadii 1971 ay qaramada midoobay cod u qaaday meesha laga saaray jamhuuriyadda Shiinaha Taiwan oo dunida aqoonsaday xulafana lahayd galbeedka matalaysa dhammaan dhulka Shiinaha si loo bedelo jamhuuriyadda dalka Shiinaha ama Shiinaha weyn ee maanta kadib cadaadis badan oo kaga yimid Shiinaha weyn sanadaas ayuu Shiinaha ka mid noqday qaramada midoobay noqdayna xubin joogto ah oo golaha ammaan ah sidoo kalena yeeshay awoodda diidmada qeexan veto power sanadii 1978 dhaqaalaha Shiinaha wuxuu ahaa 150 bilyan halka Mareykanku uu ahaa 2 trilyan dhaqaalaha dalku wuxuu ahaa mid aad u liita xitaa 20 sare kuma jirin halkaas ayuu ka bilaabay mucjisadii dhaqaale aqooneed horumareed iyo awoodeed ee Shiinuhu ka hilaacday Shiinuhu wuxuu horumariyay wax soo saarkiisa gudaha iyo ganacsigiisa dibadda sanad walba 6% ayuu dhaqaalihiis kordhayay wuxuuna dhaafay sanad kastana dal cusub oo ka horeeyay dhaqaale sanadii 1995 dhaqaalaha Shiinuhu wuxuu ahaa 730 bilyan halka Mareykanka uu ahaa 7 trilyan halka Japan ay ahayd 5 trilyan Shiinuhu sanadkii 2001 ayuu ku biiray hay'adda ganacsiga adduunka taasoo ka saaciday inuu dhaqaalihiisa sii kordho Shiinuhu sanadkii 2010 ayuu Japan kala baxay booska dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan 4 sano kadib Shiinuhu waxa uu noqday dalka ugu dhaqaalaha badan dunida qaybta BBB-ga sidoo kale Shiinaha maanta waa dalka alaabta ugu badan dibadda u dhoofsha 2.5 trilyan alaab kor u dhaafayso qiimo ahaan sanad walba dibadda u dhoofsha si la mid ah waa dalka alaabta ugu badan la soo dega 2.1 trilyan dhaqaalaha Shiinuhu waa 15 trilyan waana dalka labaad sida la rajeenayay 5 ilaa 6 sano ee soo socda ayuu kala wareegi doonaa dalka Mareykanka dhaqaalaha adduunka sanad walba 505 bilyan alaab kor u dhaafayso ayuu u dhoofiyaa Mareykanka halka midowga Yurub oo u dhoofiyo 316 milyan alaab lagu qiyaaso dakhli sanadeed soo gala dadkiisa maanta waa 19,000 celcelis ahaan xadida faqriga maanta Shiinuhu waxa uu ka hooseeyaa 0.4% dad aad u yar ayaa ku nool faqri halka sanadkii 1981 uu ahaa 88% fuqara dadkiisa dadka Shiinaha ee shaqeeya waxay kor u dhaafayaan 130 milyan oo qof halka dadka shaqo la'aantu ay yihiin 4%. heerka aqoonta dalka Shiinaha
97% waa dad wax bartay. Tiknoolajiyada guri kastoo Shiinaha ayay gaartay sanad walba. Jaamacadda Shiinaha oo dunida iyo Aasiyadaba ayaa hogaamida oo soo saarta milyanaan arday ah. Dhanka ganacsiga, 500 oo shirkadood ee dunida ugu ballaaran 130 ka mid ah Shiinaha ayaa laga leeyahay, halka bangiga Shiinuhu ay noqdeen kuwa yaalaan keedka hantideed ee caalamka ugu ballaaran. Hanti lagu qiyaaso 40 trilyan ayaa bangigaasi maamulaan. Magaalooyinka Shiinaha waxay hogaaminayaan kuwa ugu dhaqaalaha hanaanka nololeed sareeya dunida. Beijing oo qoraya ka dhaqaale badan wadamada Iran, Imaaraadka, Nigeria, Pakistan, South Africa iyo wadamo kale oo aad u badan. Hong Kong oo iyadana hoy u ah ku dhawaad 100 milyaneer ayaa iyadana ka dhaqaale badan guud ahaan dalka Masar. Shiinuhu 10 degadood ee dunida ugu mashquulka badan 6 ka mid ayuu leeyahay. Magaalooyinkiisa ay ku nool yihiin wax ka badan 1 milyan oo qof ayaa kor u dhaafaya 10 magaalo. Shanghai oo qoraya ku nool yihiin ku dhawaad 30 milyan. Magaalada Chongqing ayaa ku fidda masaafo ka weyn isku darka dalalka Netherlands iyo Switzerland. Bilyaneerada Shiinaha ku nool maanta waxay kor u dhaafayaan 300 qof. 5 maalmood ee kasta qof baa noqda bilyaneerka gudaha Shiinaha. Sidoo kale 5 maalin ee kasta Shiinaha daar dheer ayaa ku soo biirta. Shimiitadii lagu isticmaalay dalka Mareykanka guud ahaan qarnigii 20aad oo ayna ku soo gudubnay shamiito ka badan ayay Shiinuhu isticmaashay sanadihii u dhaxeeyay 2011 ilaa 13. Taasi waxay muujinaysaa sida Shiinuhu xawliga ugu dhisay dalkiisa. Haddii aan u soo jilicno dhanka awoodda ciidanka Shiinuhu waa dalka ugu ciidanka ballaaran adduunka. 2 milyan oo askari ayaa diyaar ah oo daqiiqad kasta dagaal diyaar u ah. waa dal haysta ciidanka diyaarka ah ee ugu badan adduunka. Sidoo kale in ka badan 300 madax oo nuclear ayuu ku hubeysan yahay. Dhaqaalihiisa aadka u ballaaran iyo dadkiisa badan ayaa ka saaciday awooddaas aadka u weyn inuu yeesho. Sidoo kale Shiinuhu waa dal leh dalxiisayaasha ugu badan ee dibadda u dalxiisa. In ka badan 200 bilyan oo Chinese ah ayaa sanad walba dibadda u dalxiisa, halka yimaadaan ilaa 60 milyan oo dalxiisayaal ajaanib ah. dalkaas ayna ka soo sheekeynay 40 sano ka hor wuxuu la daalaa dhacay faqri, dhaqaale xumo iyo colaad. maantana waa awoodda dunida oo ku baahday shay kasta oo soo saaray laga helo guri kasta. laga yaabay adigoo dhageysanayo inaad wax soo saarkiisa aad isticmaasho.